safiirka Soomaaliya ee u fadhiya dalkan Yemen Mudane Cabdullaahi Xaashi Shooriye ayaa booqasho iyo indho-indheyn ku tagay xaafadda Basaatiin ee magaalada Tancadan oo ay ku sugan yihiin qaxootiga ugu badan Soomaaliyeed ee magaalada Tancadan. booqashadan ayaa safiirka waxa uu u gurigalay xaaladaha ay ku sugan yihiin qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Yemen. safiirka markuu arkay xaaladda ay ku sugan yihiin sidoo kale uu ka dhageystay dhibaatadooda ayuu u qiirooday kadibna ballan u qaaday inuu wax ka bedelo xaaladooda iyo dhibaatada ay sheegteen. بريس عطوا أي رودجاجة ونص عمل عيرينا فيها ساعة صبح أصل جبال مرض مياه قبل بعد إسبوع وجبت ولا جوا حيد هذا إنه وحقص عضو بريس كنا واحد ما أنت زبقية ما كان سحب وحقص قوية ملحوقة تمقول قرآن بريس مشواية نضاف محايسنا قرصنا نوشيني دبعت برفنا تبيوم ولا برفنا تجمعنا محايسنا أنا لك أنا سبحين فايسوني إلا والله بحب الرد فايسوني على شوك خبطة الكحن دورك بريس أنا لك أنا بريسكي دور عيرين وبريسكي عيرين واي أنا المام وهيسنا ما أنت توكسي عادنا حفاي وهيسنا ما كسنو أنا كنت لما يطوم نفرع هاي سجال قرانا لوسيها طبعا قرانا تمام سيها بس أنا أقولها ناس كين والله هاي أنا نموها أنا كنت كجينا توكسي عادنا هاي عرفت هسه أنا كنت كجينا وفرحسنات سيدا ماشي وصل وسين runtii markaan arkay xaalkii meeshiisa wax ka jiraan aadan u qiirooday waxaan halkan u imid Basaatiin oo maanta aan ugu dhexlugeeyay ma ahan wax kale inaan ogaado xaalka Basaatiin ka jiro iyo xaalka Soomaalida meeshan degan tahay ay ku nool yihiin jira wax qofka markuu sheegto aniga damaq idam inaya waana waxa la yiraahdaa qabiil sax qabiil dawladda uu farmaajo hormoodku u yahay qabiil iyo musuq labadaba waa ka mamnuuc cidii lagu helaan ayada ayaa shaqada waqtigeeda sheegaysa aniga waxaan idin balaqaalayaa aniga ma fadhiisto mar walba waxaan ku dhex jiraa dadka Soomaalida ee dhibaataysan meel kasta oo ay joogaan ninkii sida aniga aan u shaqeynayo oo dadka ugu qidmaynayo anigu safiir baan ahay laakiin safiirnimadeedu ma ahan inaan inta meel fadhiistaan iska dhex fadhiisto ma inaan idin qidmeeyo oo aan cidna idinku hadlay